Soo dhawaada saaxiibayaal, maanta waxaan ka hadli doonaa noolaha lagu magacaabo gerenuk. Gerenuktu waa nooc ka mid ah noolaha duurjoogta ah, gaar ahaan haramcadka iyo reer. Waxaa kale oo loo yaqaanaa magaca walanwaal. Waxay astaan ku tahay qoore aad u dheer iyo jir aad u dhuuban. Waxay aad ugu badan yihiin geedgo'naha Afrika sida Kenya, Itoobiya iyo Soomaaliya, ayadoo aan laga tagi karin Tanzania. Gerenuktu Soomaaliya weli way joogtaa, laakiin aad bay ugu yar tahay. Maxaa sababay inay isaga tagto ama ay ku yaraato? Sababaha ugu weyn ay ugu yaraatay ayaa ugaarsiga sharci darrada, nabaad guurka dhulka sida roob yarida iyo jarista geedaha, colaado iyo ammaan darro oo saameeyay deegaanka duurjoogta. Gobollada ay hadda ku sugan tahay ama laga heli karo waxaa ka mid ah gobolka Sool, Sanaag, Togdheer, dhulka Nugaal, baadiyaha u dhexeeya Mudug iyo Galgaduud, iyo meelo ay ka tahay Jubbada Hoose iyo Baay. Gobollada aan gabi ahaanba laga heli karin waxaa ka mid ah gobolka Banaadir, Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe, Hiiraan iyo Gado ayaa aad ugu yartahay in laga helo. Soo dhawaada.